السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa idinkula wadaagaynaa 10 sabab oo jannada lagu galo. kow caqiido wanaagsan iyo camal wanaagsan. qofka caqiidadiisa inay wanaagsanaato waxay sabab u noqotaa inuu janno galo. taas beddelkeeda qofka ay caqiidadiisu qaldan tahay janno ma galo. allah wuxuu leeyahay والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. kuwa rumeeyey xaqa qabtayna camal wanaagsan kuwaasi waa asxaabta jannada dhexdeeda ayayna ku waarayaan. 2 alle iyo rasuulkiisa oo la adeeco. allah waxa uu leeyahay ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. qofkii alle iyo rasuulkiisa adeeca wuxuu gelin jannooyin ay socdaan hoostooda webiyaal. sidoo kale xadiis saxiix ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku leeyahay ummadeyda oo dhan waxay galaysaa jannada ilaa qofkii diido ma ahane. markaas ayaa nabiga lagu yiri rasuulkii allah yaa diiday. kadib ayuu nabiga dhahay qofkii anigii adeeco jannada ayuu galay kii caasiyana wuu diiday. 3 gabdhaha oo si wanaagsan loo tarbiyeeyo. qofkii ay u joogto 3 ama 2 gabdhood tarbiyadoodana wanaajiyo una naxariisto diintoodana bara qofkaasi waxa uu waajibtay janno. 4 jidka oo laga leexiyo waxyaabaha dadka dhibo iyaduna waxay ka mid tahay sababaha jannada lagu galo. 5 alle dartii oo loo jihaado. jihaadku waxa uu ka mid yahay acmaasha qabashadeeda janno lagu galo. jihaadku ma ahan keliya in qori ama seef la qaato. jihaadku waa in gaalada lala jihaado iyo in nafta lagala jihaado xumaanta. 6 waalidka oo loo baarinimo sameeyo waa mid ka mid ah wadooyinka ugu fudud ee jannada lagu galo. sidoo kale waxaa la sheegaa qofka waalidkiisa baariga u ah inuusan ku dhiman qaatumo xun. 7 agoonta oo la kafaala qaado. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay aniga iyo kan kafaala qaado agoonta waxaan jannada ku nahay sidaas oo kale. wuxuuna tilmaamay 2 safar. 8 dhaqanka wanaagsan iyo alle ka cabsiga iyaguna waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee jannada lagu galo. 9 aqrinta aayatul kursi. xadiis laga wariyay nabiga naxariistii nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaa wuxuu ahaa qofkii aqriya aayatul kursi salaad waliba oo waajib ah gadaasheeda jannada geliteeda waxaa ka xiga inuu dhinto. 10 barashada cilmiga sharciga ah. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa laga wariyay inuu dhahay qofkii qaado wado ama jid isagoo raadinayo cilmi barashadiisa allah wuxuu u sahlaa dariiqa jannada.